adduunyada nin joogow maxaa aragti kuu laaban. Ilmahan yar aad u jeedid waa ilmo yar oo u dhashay waddanka Nigeria. Booliska ayaa ku qabtay aabihii oo ku siday jawaankaas isagoo oo isku dayay inuu iibiyo. Aabihii markii la qabtay la weydiiyey sababta ilmaha yar u iibinayo, wuxuu sheegay inuu 8 ciyaal uu dhalay, intay 7 kale ama isagoo ay 8 gaajo u dhiman lahaayeen, inuu jeclaystay ama uu wanaag u arkay inuu mid kamid uu iibiyo kadibna uu ku nooleeyo 7 soo hadhay. Hooyadii ayaa booliska soo wargelisay intuu ilmaha iibin. Odaygii inuu ilmihii iibinayay uu suuqa u qaaday booliska soo gelisay, kadibna booliska ayaa gacanta ku soo dhigay. Imikana xukunkiisii ayaa laga yaaban yahay sidii loo xukumi lahaa. Haddaba message-ku wuxuu yahay: ilaali ilmahaaga, ka ilaali budhcadka, ka ilaali qowleysatada, ka ilaali dadka ka ganacsada xubnaha bini'aadanka. Ha noqdo qof kuu dhow, ha noqdo qof kaa dheer, ha noqdo qof garasho ah, intuba waxaa laga heli karaa qof qowleysato oo dhiigga bini'aadanka iibiya. Haddaba waad mahadsan tahay dhegaysigaaga. sidoo kale waxaan ku weydiisanayaa inaad la share garaysid videogan asxaabta kale sida uga digtoonaadaan ficilkan wuxuushnimada ah ee bini'aadanka lagula kacayo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.